السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا الله يجر يوتيوب كيجا سود وهذا مروى البقع مفرن وجه فرن قلبي فرن وولا شيء نعاش اللذن وإذا الله إذا هاي هبي وناكسن مالي وناكسن قلب وناكسن صباح وناكسن نيمبا وقتي وطهيانكو سلامة مركا كوبات كلي وحن كلا سو كلمي مدحوينه عزبا أم مشرح العزبا وهذا الدور الشد الديار إن شاء الله waxaan ilaahay uga baryaynaa mid khayr qabo inuu ilaahay nooga dhigo insha Allah biidnillaahi kariim. wadanka ku soo dhawow, Canada ku soo dhawow, Toronto ku soo dhawow insha Allah. ina wareysa aniga horta deeri company oo shaqeeya ma sha Allah وأقول في بيئة وتقريبا Toronto iyo waliba dad aad u jecel in ay Soomaaliya hagaagto. wuxuu noqon doonaa barnaamij aad u gaaban oo qurux badan oo si wanaagsan loo soo qorsheeyay oo aan yeelin doonin khudbado dhaadheer iyo waliba hadallo fara badan. wuxuuna noqon doonaa mid la idiin siiyo waqti murashaxa inaad weydiisaan su'aalaha aad ka dhexeshaan khudbadda haddii Allaha awoodda leh ogolaado uu jeedin doono. marka ugu horeysaba waxaan u yeerayaa quraanka kariimka ah oo barnaamijkeena ku bilaabanayno. waxaa ilaha quraanka kariimka inoo marinaya haddii Allaha awoodda leh ogolaado sheekheena Sheekh Cabdisamed Xasan Barre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ما شاء الله. وحال مركله مرغبا iyo marka xad aad idin kaga mahad celinayna sida quruxda badan ee murashaxa khudbadiisa iyo waliba gabankiisa siyaasadeed intaba u maqashaan ka soo qaybgalka quruxda badan ee aad samayseen. marka ugu horeysa waxaan barnaamijkeena ku furan doonaa heeska calanka astaanta ee qarankeena Soomaaliya. aan ku codsado DJ-ga inuu heeskaas noo saaro.
مركله haddii aan idiin sheego duubidda iyo weliba sharaxaadan quruxda badan waxaa iskale weriyo sare al-ustaad mahad carabow saaxiibkay oo ku caanbaxay duubidda barnaamijyada iyo weliba qurxinta goobaha la isugu yimaado aniguna waxaan ahay mid ka mid a weriyaasha soomaaliyeed ee dalkani Canada magacaygu waa maxamed cabdullaahi xasan markii la ii sheegay in aan xiriirin doono barnaamijkan ayaan ka suxufi ahaan waxaan soo sameeyey xog ururin ku saabsan murashax bashiir ammaan cali mire waxaa ii soo baxday inuu yahay guddoomiyaha xisbiga ramaas oo isagu uu sameeyey waxaa ii soo baxday oo kale inuu xisbigu ka qayb qaatay doorashooyin dhowaan ka dhacay dalkeena gaar ahaana magaalada muqdisho iyo koonfur galbeed gaar ahaana caasimada koonfur galbeed ee ku meel gaarka ee baydhabo guulo wax ku oolana durbo uu xisbigu ka soo weeyey waa aqoonyahan xagga dhaqaalaha aad ugu horumaray saldhigga deegaanna u yahay dalka Sweden wuxuu aad qayb wanaagsan uga qaatay wax badanna uu ka bedelay isagoo guddoomiye u ah guddiga manhajka waxbarashada ee dalkeena Soomaaliya bacdama uu yahay aqoonyahan xagga dhaqaalaha aad ugu caanbaxay wuxuu isku dayay sida aan filayana uu weli gacanta ku hayaa in uu dalka ka hirgeliyo bangiyo islaami ah ووحيالها أن كسر حوتك كسر حيث أهان أو يسوي إيش شيء معها واحد كلا إيش شيء تنا معها هدي واحد كخلدنا تستجع أي خطبة بدي سوق سعدونا ذكر ريان تورنتو وحين عام كوي من قدام بسور دوينتا منتدا يولي بدك دوريا إنك يسعد كسياسة ذاك وحكب بدلان تدفر بدن وأقوي هنا أي قوة فردية واحد لا سور دوينتا قدوميها جارية أما قومية بنادرجة دكتور محمد علي الشيخي ومروضة عن كتالين إن أوقعهم لقوبها لجزء روينة يا أملوه بكرفونية سياسة الدكتور الشيخي بسم الله الرحمن الرحيم أنا وقوها الله يمقع قومين بنادرقة وحاكم السلام يا صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاو شرف وين بيجي إن عقد قالوا مناسبة عن الوصول دوين أيو مشرح مدحويني مدن بشير أمان علي ميري. مركور إيه سبحانه وتعالى وحان كعبر يا إنه يقول كاسيو أو أبغى مدحويني سوماني جارسيا هرمر. ومرة حيتنا وها مهد بدن dadkii xafladan soo agaasimay oo qayb weyn ka qaatay mudane bashiir jaaliyadda Soomaaliyeed ee Toronto waxaa lagu yaqaanaa soo dhaweynta martisooridana waxay ka mid tahay wax weyn oo diinteena islaamka qiimo badan ku leh nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri qofkii ilaahay iyo maalinta qiyaamaha rumaysan martidiisa ha karaameeyo waxaa kaloo lagu yaqaanaa reer Toronto siduu sheegay wariye maxamed cabdullaahi xasan in martida Soomaaliyeed oo aan dareemayno in wadankii ay wax u qabanayaan inaan tusino Soomaalinimadeeni kuna dhiirigelino waxa ay qabanayaan inay u qabanayaan ummadooda meel walba ay joogaan mudane bashiir haddii aad ku guulaysatid xilka waxaa ogaataa in rajo idinka sugayo wadanka iyo ummadda ilaahay u baahan idinkana idin baahan waa duceynay waa habaartannay waa isdilnay waa isbaabi'inay waxay taagan tahay maanta arrintii ay ka dhawaajisay allah u naxariistaa xildhibaan saade cali warsame heestii qaadi jirtay aan kuu taliyay ma ii talinaysid adiga ii tali ma kuu talinayay aan wada tashano ma wada tashanayno aan kala tagno ma kala tegayno وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد باندين سلام يا آد بانكم هالعلين يا أهل الشرف كقولت نشوفه ويدل أنا وجوهر مرية odayaasha jaaliyadda madaxda u ah ee sharafta leh qiimaha leh gabdhaheena sharafta leh oo qiimaha leh dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba leh
aqoon-yahanka culummada dhammaan aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. Allah idin shafo, Allah idin karaameeyo. tiimka hogaaminaya meediyada iyo shirka hogaaminayaba oday maxamed cabdullaahi xasan iyo ay ugu horeeyaan aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dhammaanteen. Allah idin shafo, idin karaameeyo. aad baan reer Toronto si gaar ah ugu mahad celinayaa. tan iyo airportka tan iyo hadeer yaa lay wada lay soo dhaweeyay, weliba anoo habeenbar imid. marka waxay tusaysaa magaalo baxnimo iyo xadaaro iyo sharaf iyo gobonimo ay taalo. aad baan idinku mahad celinayaa. waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan la qaybsado aragtida iyo fikradda aan qabaan isleeyahay Soomaaliya waxbaa laga qaban karaa. waa talo fikrad dhinacayga ka timid. insha allahu tacaala su-aalahan iskala qayb qaadan doonaa. wax allaale waxaynu fahmin, waxaad u aragtaan inay khaldan yihiin, waxaad u aragtaan in la saxo talooyinkii iyo fikraddii ay soo jeediyeen. odayadoo idin waa dhegaysanaya oday maxamed cali shiikhay oo maxay tahay nin taariikhiyahana taariikhda aad baan u jecelahay. kitaab uu qoray oo taariikhda Banaadir uu kaga sheekeynayana aad baan u jecelahay. marka talooyinka ay soo jeediyeen odayadoo dhan si karaamo leh ayaan insha Allah tixgelin doonaa. oday Siciid oo soo dhaweeyay injineer Siciid iyo maxay tahay wada sheekaysigan sheekaysanayna aad baan ugu farxay runtii. waxaan rabaa inaan ku hormaro tiirarka xisbiga Ramaas ama ururka Ramaas tiirarka uu ku taagan yahay. insha Allah waan ku bilaabay oo ku khatimayaa. tiirka koowaad waxa weeye ku dhaqanka diinta Islaamka. ku dhaqanka diinta Islaamka waa qodobka koowaad. qodobkaas muhiimadda uu leeyahay, qodobkaas ku dhaqanka diinta Islaamka muhiimadda uu leeyahay wax dhibo ma laga arkaya. qodobkaas ku dhaqanka diinta Islaamka waan sharxayaa sababta. maxaa yeelay Soomaaliya maanta waxay maraysaa xilligii kaniisaddu ay maraysay. xilligii kaniisaddu ay maraysay oo ahayd diintii in laga dhigay wax private ah oo kaniisadda lagu caabudo ilaahay, dabadeedna kaniisadda albaabkeeda looga tago diinta. sidaasay reer Yurub ay gaareen. dadkii kiristaanka oo diintooda ka tegay saasay noqdeen. Soomaaliyana hadda waxay maraysaa heer diinta lagaga tago masaajidka. masaajidka la yimaadaa, waa lagu tukadaa, waa lagu cibaadaystaa. albaabka masaajidka marka laga baxo diinta shaqo la iskuma laha. marka qofku waxa la wuxuu doono samayn karaa. wuxuu doono xaraam buu iibin karaa. dukaan buu leeyahay masaajidka ku dhagan, xaraam buu ku iibinayaa. qofku rabu dhici karaa, qofku rabu khiyaani karaa, qofku rabu been sheegi karaa, qofku rabu dili karaa, dhiig wax xalaashanaya. wax kasta waxay u noqotay xalaal. marka diinta waxaa laga dhigay private qofka, salaadaada, soonkaaga, sakadaada, wixii ahayd shakhsiga, qofka shakhsiga. wax allaale wixii ah mucaamalo dhaqan oo diinta oo dhanba asalkeedu ku taagan yahayba waa laga saaray. wixii waxaa la yidhi mataqaana marka taa inaan saxnaan rabnaa. diinteenu waxaa weeye waa cilmi iyo camal. diinteenu waa mucaamalo. diinteenu waa habdhaqan. waxaa inii sheega wax la yaab leh. waxaa laga yaabaa cibaadada soonka iyo salaada keligaa bay kugu xiran tahay, adiga ilaah bay idinka dhexaysa. laakiin mucaamalada waxay idinka dhexaysa adiga iyo basharka. waxaa laga yaabaa haddii mucaamaladii bini aadamka aad ka badbaado oo ilaahay qiyaamaha aad u tagto adigoo isaga keliya dembi ka galay inuu ku cafiyo ku dhaafo jannada ku geeyo way dhici kartaa. laakiin adigoo aadanihii dhibay ilaahay janno ka sugi maysa. maxaa yeelay ilaahay ma cafiyo xuquuq dad kale ma cafiyo ilaahay subxaana wa tacaala. adaa laga rabaa shaqadaa inaad qabato. marka waxaad arkaysaa haweenay sinaysata, xadiistii baa noo sheegay, haweenay sinaysata yaa jannadii maxay ku gashay? ay waraabisay. waa mucaamalo. xayawaan miskiin oo dhibaataysan bay aragtay, way u gargaartay. ka khaldan tahay waa diinta islaamka ku dhaqankeeda bay ka khaldan tahay. kow, dowladdeeni waxay ka khaldantay maalintii 60kii la qaatay dowladdii iyo calankii la surtay. shareecada islaamka dhinac baa la iska dhigay. sharciga talyaaniga iyo sharciga gaalada dhulka laga saaray baa lagu dhaqay. Soomaaliya say usoo noqoto waa in shareecadii ilaahayna lagu dhaqo, diinta islaamkana lagu dhaqo oo si saxa loogu dhaqo. waa qodobka koowaad. xisbiga Ramaas tiirka koowaad ku taagan yahay waa kaas. tiirka labaad waa hirgelinta dowlad wanaagga, waxa la yidhaha good governance, maamul wanaag. walaasha sharafta leh waxay ka sheekaysay waxa ilaaliya maamulka iyo shaqada iyo camalka. shaqadu waa camal, maamulka wanaagsan isagaa baabiinaya wax oo dhan. fiir good governance haddaa akhrido 8 tiir buu ka kooban yahay. 8 qodob wey, 8 qodob. insha Allah haddaan maalin maalmaha seelno waan idiin sharxi doona. halkan uu ku jiraa 8 qodob weeye. waxaa ka mid a marka qodobadaas waa qodobada baabi'inaya, laaluushka baabi'inaya, khiyaanada baabi'inaya,
xatooyada baabiinaya qabyaalada baabiinaya qabiilku maxmo waa sax siday tiri weeye diinteenuna saasay leedahay laakiin waxa xun waxa weeye qabyaalada waxa weeye inaad qof ku colaadiso inuu reer hebel yahay ama qof ku siiso xuquuq uusan lahayn maadaama uu reer hebel yahay marka qabyaalada waa noocaas qof baad xaqiisa ku duursiinaysaa sababta waa reer hebel qofna waxaad siinaysaa xaq uusan lahayn sababta waa reer hebel ama qofkan xurmu leeyahay waa reer hebel qofkan xurmo male waa reer hebel sax ma sidaa marka taas way tad xun laakiin qabiil in la ahaado ilaahay baa ogol diinta ogol in maxay ta reer la ahaado rixim in la xiriiriyo diinta ogol laakiin wax xun bay diintu diidantahay maamul wanaaggu waa qodobka Soomaali badbaadin kara waddankeena dhisi kara horumarin kara waa maamul wanaagga sharx dheer man ka bixin doona qodobka saddexaad adeeg bulsho oo dhamaystiran oo tayo leh adeeg bulsho loo baahan yahay social service baa loo baahan yahay tacliim bilaash loo baahan yahay caafimaad baa loo baahan yahay wadda loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay biyo waxaa loo baahan yahay koronto waxaa loo baahan yahay nolol wax la cuno wax la cabo ma jira adeeg shacab maadaama adeeg shacab uusan jirin innaga baa soconayna marka waxaa la isku dilayaa ceel biyaa la isku dilayaa reer hebel eberiskaga dhigay ceel biyaa ma ceelasha badsan ma biyo soo saaran waxaa la isku dilayaa daaq halkana abaar ka dhacday halkaasani waa la isdilayaa in yar baa la isku haystaa madaxda Soomaalida waxay isku wada eriyanayaan ma taqaana xoogaa shilimaano gaalo laga soo tuugso yaa la isku wada dilay marka meeya adeegii bulshada meeya adeeg baan u baahanahay inaan samayno oo dhamaystiran oo tayo leh aragtida xisbiga Ramaas ama aragtida anigu aan aaminsanahay qof ahaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala haduu qadaro oo dalka Soomaaliya aan hogaamiyo qodobadan muhiimka aragtida iyo visionka waxay dhahaan Soomaaliya waxaan u bixiyay bidaanaad ilaashanayso beegsanayso oo aad mataqaana ku socoto meesha aad rabto inaad tagto waa bidaan ku muuqata aragtida ii muuqata waxa weeye Soomaaliya barwaaqo ay Soomaaliya maxaa yeelay waxaan mas'uuliyadda Ilaahay wadankii ugu qanisanaa dunida inaan noqono dadka ugu farsan dunida saxba waxna qabta ma tahay Ilaahay baan kugu dhaariyay waxna qabta ma tahay cilmiga adduunka fiiri baar Ilaahay khayraadku nasiib nimcadu nasiib baar iyo maanta inaan fakhri nahay oo tuugsanayno oo hay'ado wax ka sugayno oo Red Cross wax ka sugayno oo Save the Children wax ka sugayno oo Oxfam ka sugayno oo organization wadan kasta oo aan tuugsanayno wax sax ah qalma meel gobonnimadeena sharafteena hadraawi waxa la yiri waa maxay gobonnimo hadraawi Allah ha naxariisto aboonkii weynaa Soomaaliyeed gobonnimo waa maxay gobonnimo wuxuu yiri waxa weeye baahidaada inaad ka adkaato baahidaada inaan ka adkaano intaan gaalada tuugsanay gacanta waqtanahay Soomaaliya barwaaqo maxay hayto waxaan aad u bartay waxaan raadsaday inaan barto cilmi dhaqaalaha wadan sida loo soo saaro waxaan u dhiganayay kaliya inaan ogaado wadankayga maalinta tagasaan dhaqaale u soo saaro sababtu maxay tahay sababta miisaaniyadda wadanka Soomaaliya $1 bilyan wax ka yaro $1 bilyan halka bilyan in yar baan ka soo saarnaa inta kale waa tuugsanay shaqaf iyo koon baan la wareegay xogaa nasiib dowladeed shan waxyaalood wadankii leh waa u guulaystay shanta waxyaalood cid walba taqaana waxay xoolo ka bilaabay xoolo haddaad leedahay xoolo ma leenahay muslimin haye yaa naga xoolo badan haye waxaa qodobka labaad inaan leenahay bad iyo kalluun haye badda ugu dheer Afrika khariidada inaga ugu dheer Madagascar kaliya naga dheer laakiin jasiirada laakiin Afrikada khariidada Soomaaliya koowa Soomaa badi kalluun Ilaahay ma nasiib sanamasi Sheekh Mustafa Ismaaciil Haruun Allah maxay tahay Ilaahay khayr ha siiyo ajri xasanad ha siiyo wixii waaga abaartu ugu dhacday haddii qof kasta Soomaaliya xeebta uu tago saa yiraahdo kalluunku soo qabsanaya maxaan ka ugu dhimanay waa kala Soomaa saddex qodobka saddexaad oo wadankeena Ilaahay siiyo u hibeeyo waa maxay beero beereed ma leenahay 9 milyan hektar baan lahayn 1 milyan oo hektar waa la gubay dhuxul baa laga dhigay 8 milyan oo hektar baan lahayn 8 milyan oo hektar intee la egtahay ma taqaanaa waxaan muxaadar ka jeediyay kuwa jaamacadda Kuwait waan u sheegay marka waxaan ku yiri dhulman hogaankii qofkii hadii la hogaankii afartii khayraadba maka aradana mise kama aradnay sababta kii khayraadka soo saar lahaa bayna ka maqan Soomaha oo ka shaqaysiin lahaa oo horumarin lahaa yaana ka maqan qaacidada ugu doortana hadda 4.5 markii la yiri gobol kasta ka soo bilow geeska Soomaaliya ilaa geeska Soomaaliya marka la rabo in dad shaqo la siiyo wasiirro la qoro agaasimayaal la qoro waxaan reer laga dooranayaa kan ugu qaaqalaysan ugu liita
oo maxay tahay wax horumar lahayn doonaynin qorshihiisu iyo xoogaa shilmaan intuu urursaday inuu tago waaba qaacidada lagu doortaba nasiib darray noqotay marka aniga waxay muuqata Soomaaliya barwaaqo waan ka khayraad badanna waan ka nimco badannahay wadamada kale oo dhan qodobkaas sidaan u wada samayn lahayn shaqada noo taalo isagaan ku bilaabay maxaan ugu bilaabay maxaa yeelay waa qayb ka mid ah dhibaatadeena oo dhan taas weeye waana insha Allah tacaala khatimkana waad arki doontaa Soomaaliya oo nabad ah Soomaaliya oo nabad صدق حدولنا سومالي وعدالة وعدالة كشكين سكولنا كشكين سي وضيضة ودنا كشكين خيارة ودنا كشكين عدالة ومهم عدالة ومهم عدالة الآن توحى مذكور قلتقوية عدالة ومهم قالوا كلام سومالي وقيم اللي بحكي قاعدة البحنمة الدنيا البحنمة الدنيا وين قيم قاعدة النوم سومالي البحنمة الدنيا قيم كم ذا وحن كقيم قاعدة البحنمة الدنيا مدة هنا وحن كقيم قاعدة تضاوب قولي 5 سنة جوردي عاصمة السودان ستوكهولم عاصمة السودان ستوكهولم سنة جوردي مركا كلمة بلغيسي تضاوب قولي 5 سنة يبدأ بلدقيسة وحاولت بكم بلاغي وكفر حسنة ستوكهولم تضاوب قولي 5 سنة ترستي لكن أنا وحن كيف عاصمة دور كنا سنة دور عاصمة دور كنا سنة مركا شيء ذاتي وضع قياسي وعيقول هندي مياه هندي مركا عندما يخطبتي السودان waxay ku dhahay hindi miyaa tahay markaas ay ma hindi ma halkaas ilaaday Bangladesh mi Indonesia meel ay kala dhaceen Misir aqalgooda kuma soo dhicin Soomaaliya ma malayn kartaa waxay leedahay Yemen Oman miyaa tahay Yemen miyaa tahay ma hada ta waxaan ku yiri Soomaaliya naga daaway dhahay sheekada Soomaaliya ma dhici kartay xalama inay leedahay markaas aan idin akhriyo kutubta bay akhriyeen ixtiraam badan bay muujiyeen markaas ابن بطوطة مركو قريو البحنمات المقدشة تعالى مركو قريو استوكهولم ميتشيغ كورما استوكهولم ميتشيغ مركو ابن بطوطة المقدشة نمديسة الدون كان لكن عسين ترني الدون كان جين ترني علم جانا عقل جانا وضمدنا ومسلم دين تأنه جيني ودك بروناي وحقر الناس Soomaaliya in diinta keenay sheekhna caalimaha maldiif inaanu geynay Indonesia inaanu geynay dunida hagi jirno hogaamin jirno ma ogyihiin Soomaalidu 1200 oo sano xarameeyay inay Soomaaliya difaacayso gacanka cadmeed iyo badda cas in Soomaalidu ay jeesh sameeyeen xitaa qabaa'ilka Soomaalida iyo boqortooyooyinka Soomaalida ka jiri jiray inay ilaalin jireen gaaladii rabtay intay badda marto jidda ay ka gasho Maka ay tagto Buuriso ama Madiina ay tagto la soo baxda qabrigii nabiga ciidan Soomaaliya yaa difaaci jiray 1200 sano waxaas xadaaraan leedahay ilbaxnimada dunida inaan qayb ka qaadano waa lagama Soomaalida oo siman waa riyooyinka rasmiga aan leenahay Soomaalida oo siman hadda Soomaalida ma sinna Soomaali waxa la yiri reerebel male wasaaradda ee male nabadgelyada muwaadinka Soomaaliyeed nabadgelyadiisa inaan ka shaqeyno hadda dhibaatadiisa ma taqaana meeshii la doonaa lagu diliyaa waqtiga la doonaa lagu diliyaa qofkii doonaa lagu diliyaa meel aan ku helaysa cawaala ma jirto meeshii la doonaa lagu diliyaa imisa maalin kasta la dilaa hebel baa la dilay mushkilad muwaadinkii ma haysta amni iyo nabadgelyo kaamila ma haysto ujeedooyinka fog inaan ka hirgeliyo dawlad wanaag waddanka oo idil dawlad wanaag waa muhiim inaan dhiso ciidan qaran oo tayo taag bale ciidan qaran Soomaaliyeed ciidanka qaranka Soomaaliyeed markuu jiray inagoo yar oo tabar yar oo tiradeenu yar tahay ee wax iska dhicinayna dawlado waaweyn oo quwada leh oo kumanaan sano jira yaa wax iska dhicina anagoo yar oo tabar lahayn sababtoo waa maxay ciidan tayo leh ciidan qaran baan haysan oo sharaf leh askarigu sharaf buu lahaa qiimo lahaa maanta askariga sharafta laga qaaday shilimaan yar baa la siinayaa waa uu tuugsanaya ma difaacan waxaan yiri askari aan difaacnaysa wuxuu difaaca ma difaacan wuxuu gashan yahay surwaal iyo shaar wax rasaasta ka celiya ma gashana koofiyad wax ka celisa ma gashana waxba ma gashana markaasuu dagaalamaya inuu dagaalamo rabo xabadda koowaad yaa ku dhacay soo dilaysa waxa kaaga dar hadduu dhinto waa dabeer bakti ilmihiisii xaaskiisii noloshiisii mushaar male mushaarada ka go'a waa maqasheen askar wadadii goysay oo mushaarkoodii la soo maaha oo baabuurtii safarka qabsanayo mushaar ka qaadanayo waa garatay soo maaha musiibad nooga weyn miyaa jirta askarigaas u dagaalamaya see u xoreynaya ooyooyinku waxay yidhaahdeen hadduu dhintana anuu iga dhintay
وهوينكي وقيلنا يا هدو دينتنا أنا ويقال دينتي هدو داوعنا أنا اللي كسو ثوري يدا لك ربا الدوديسي يدا لك ربا أسيديسي يدا لك ربا وحول مشكلة دوي عسكري وين استمر يتاكل ليه تيار وين ليه مشار وين قتل نورنا وين هيستو مركز واحد دفاعك إذا ماذا الشيء أنا كسر من دلك إذا ماذا الشيء دلك أنا كسر وحيدي شيء يعني مهم ولا مسكحة إننا جلسان أنت وحنا مقفل بينه مسكحة يسجل عيدا شيء ميل تشوغن نبتقلي كم تشوف وطن كان مقالوين كوطن كانوا ينبتقلي كنت دوا مقالوين كعيدا شيء ثم فهمت عيدا ما الشيء ميل تشوغن نبتقلي ما حيبقوا تشوغن عيدا ما راس سنة نبتقلي يعني هذيك لو كقفتوا من الناس ما مشافي عنه وقاتا سما مركب وين وضع فرنا لقسا هنا وضمد الدرس كحرير وعليا لنا وضمد الدرس كحرير وعوان لدوننا لكن يجي واحد لقى شقينا يا وضمد الدرس وحلو قنعيه صومالي وقوة له يسدعي صومالي يسنبض قرني صومالي يسنهرم مرن مركز حاول يخسب انفور مرنا مركز خسب الدلك انه كل سنه خسب انه سمي سنه لكن لو تبقى لي adeeg bulshada in la gaarsiiyo miyi iyo magaalada miyigu waa inuu adeeg helo sababta miyigu adeeg u helayaan ii sheegay hadduusan miyigu adeeg helin inaguna magaalada nabad kuma helin way isdilayaan hadhowna inaga isdilay qabiil ma ka dhexeeyo meel ka qofa ogtihiin oo maanta u baahan heshiisiyo tolad dhexdeeda anigu kumultiga ku dhex jiraa hooyooyin maxaa aqaana gabdhahooda la hadlay aabbayaal maxaa aqaana wiilashooda salaamin waxaa jiro dad ilmaadeeraha isa salaamin aroos isu imaanin adoo kuwaas qabiil ma kala geeyin kuwaas idab darro iyo xaasidnimo iyo maamul xumo oo dhexdeeda ku jirtaa kala geeyin marka walaalayaalow hadalka soo koobaya maadaama xafladda yar tahay aan taabano gunta muslim aan nahay haddana salaada kusii jeednaan ana hadda muqdisho waan ka imaaday 2 bilood ku maqnaa is the first time 16 sano tagayay oo labadaas bilood aan cabsanin أنا ضد قاعد بعصر هاي مجد لنا وحنا دعانا هبين صدق قبيشة أو بريم اللولي ماشي حفلتها الجوي مدحينا مركو صوغل واضح وحقا هذه هوتيل كي اسكال سبتها ولا كلامين أنا أسكري أيضا مدحوينها ضد هذه الأيين وحنا كل عام هاي بجواري وأسكبح سيفتي كتير هذا حمل very relative safety واي any time وهلا بكرة لكن ضد محمودها يا enjoy كراينو ما أنت وافي عنك ما أنت نورانو مركا نبض عيالك دوا فهمين عيالك لما يرى فرتجرك أو تمسر جركو عيالك دعاي ويلقوا أمور إلى نبض في عنك هذا يقولين إيدو سامع كنا لا جرتين كفي عن إيدو الحديث دار مركا يقولين أوكي نجي بنابحة الناس بجو ما بحيني بنابحي دوال الماء جديد ما هنا وأقول ترى هذيك سحمر الجوي مين يقحم الجوي وعبصر ما كنت محاول قاعدين بحوينه هرمود وين بتبارس حلو بتبارسي 2000 اور اي بي سي هو قبلنا العقل انت في حاجه قاعدين بتبارس مركا جبدي داسي ستور واي مدحوينها كونجراتوليشن الى حق سيابه غير نقص كل كلمه كل ما انا waxay ahayd suuban faytaan oo ka mid ah haweenka reer Canada gaar ahaan kuwa magaalada Toronto ee dalkani Canada waxaa laga hadlay cadaalad sinaan iyo midnimo oo aad loo codsaday xuuraansi saxaafadeed oo ku soo sameeyay xisbigan uu gudoomiyaha ka yahay murashax madaxweyne Bashiir Amaan Cali Mire himilooyinkooda dowladnimo waxaa ku arkay inay tahay sinaan cadaalad midnimo dimuqraadiyad iyo dowlad loo dhanyahay oo Soomaaliyeed isaga ayaa inoo sharaxi doona su'aalana waad ka weydiin doontaan وهجاج وحبيبي يعني كميدا ضد الصوماليين اللي تورنتو عامكا وليبا وغير من مدى يودجيك الصومالي ذا إلى سوريا إنجنير سعيد دفوجي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا waxaan salaamayaa dhammaan dadka halkaan isugu yimid inay nala soo dhaweeyaan walaalkeen musharax madaxweyne Bashiir Amaan Cali Mire. salaanta ka dhacdi horta
bashiir anigu booliskiisa aad baa uga warqabaa siyaasadihiisa waa ka warqabaa wuxuu aaminsan yahay waa ka warqabaa runtiina bashiir waa nin aqoon diineed iyo aqoon maadiya labadaba leh ummad islaama markii la hogaaminayo malaysia waa tegay waan u bandhigay waxaan ku yidhi shaqadaasaan doonaa dalkayga inaan dhisano waxaan idinka baahannahay hiilo iyo maxay tahay wada shaqayn iyo khibraddiina inaan ka faa'iidaysano wayna ballan qaaday runtii waxa weeyaan beri waa maalin shaqo laba qof aan kusoo koobaynaa waxaan u wacaya wiil dhalinyaro ah soo dhawo maxamuud saciid cismaan soo dhawo maxamuud runtiina qayb weyn buu ka qaatay barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa maxamed saciid cumar waa salaamaynaa madaxweynaha dowladda soomaaliya bashiir amaan caliile kusoo dhawow baa leenahay wadankan Canada Toronto diyaaradda Soomaaliyeed runtii aad baan u faraxsanahay markaadid oo bulshadii Soomaaliyeed oo cid walba leh Soomaaliyeed oo dhan tahay inaa caawa la fadhiisatid oo waraabashaan aad baan waqtigaaga iyo maanshaha midda kale hadduu allaha wada jaaliyadda Puntland gudoomiyaha محمود أو محمد يوسف كريم كنا نتوقع بين عشرة يوم من هذا ديك اليتيم كذا ونسوي هو تورنتو أنا وفرق الجاليات في الميديا سحرها مثلا وكرم العلم مع شهر سؤال ودينا وعكمنا هدية الكفل لعل لبناء صوماليا حاكم بدون وطنك مدام وطن روبريا حديث ونور كل لكن سؤال المدير وعند أشهر كذا كذا وطن الصومالية بعد أن الصومالية ضوتها. إن شاء الله تعالى برنامجكي عن سوشيال بواحد رأينا هيركل إن شاء الله تعالى وطن الصومالية ويدين دبي تعال إن شاء الله تعالى لبنا بيس لبنا جنوبا الله يسكوا يكرمه. ما شاء الله وما سنتعرفي محمود محمود runtii waa qof qaali ugu ah jaaliyadda Puntland iyo isinka gudoomiyaha ka socda waa mahadsantihiin aygo bixina waxaan rabaa hal su'aala oo su'aal wareegnimo ah inaan weydiiyo murashax madaxweyne bashiir mudane waxyaabaha aad ka hadashay waa arrimo qof kasta oo Soomaaliya waxgarada uu og yahay inay dhaqaajinayaan dowladnimada Soomaaliyeed sidaad u sheegtayna Soomaaliya waa dal ku nool gacan shisheeye waxaad gundhig uga dhigtay wanaagaaga diinta islaamka ee muqadaska ah oo sida aad sheegtay dadka wuxu qabanaysaa waa lagaa hor iman shisheeyaa kaa hor iman maxaad isku difaaci ku dargelaysaa وسؤالات قيمة بدن برهانتي سؤالات قيمة بدن دينة الإسلام كانت دجال عالمية بالوجه international لكن دفاع أبوين على إنه إله سبحانه وتعالى قادر كهذا محيي لي إله رب الله قال يقول إن تنصر الله ينصركم إله دينتي سداد قدام إله بيجي قدام مرضى بقاعدة إلهي وذكر إله إليه كتب الله لأغلبن أنا والرسول إن الله قوي عزيز إلهي يقول لي إله بقى وحقوق قري كتبته قري أنا الرسول شيء هي كوليسني حق كوليسني ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أنت أيضا القرآن وبلغات إلهي وقاضي ما ملين كريسي هل قاعدة مركز الله أنا أقول ما أرانا إنه إلهي أدوكنا الدفاع عنه استدفاع من أرانا منه وحلنا جدا وحين قرأت النية إن الله ما نصافية أو ربا وحقيقة إنك تهاي ودونتان صح إنك تهاي دبادات وحن قدرنا عمل يشقه عمل يشقه مركم قدرنا إلهي قرقال كسي توه لسان لنا إلهي يوليسا لكن وحقوه وكلا رمتي وأنا من سنة إن الدفاعية واصلا وكو حق يعدالك مركز الحق تاجرتهاي ولا كان سعادات كان يهر باطل يلقى بوليستا حق البوليستا منتبه قادة هذا والله
waxaan ku kalsoonahay shacabka Soomaaliyeed waa shacabka ugu geesisan dunida ugu goobsan dunida ugu sharafta badan dunida diintooda ugu jecel diintooda difaacda diintooda u wada dhinta diintooda intaas ilaashanayay shacabka Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay dhammaantood iyagoon kala harin boqolkiiba boqol xitaa 99 ma boqolkiiba boqol iyagoon kala harin inay insha Allah ay difaaci doonaan diintooda iyo sharaftooda inay ku dhaqmaan horun marsadaan shacabka Soomaaliyeed insha Allah taala وهجاء waxaan soo galay gabagabadii barnaamijkan quruxda badan ee reer Toronto ku martigelinayaan murashaxa xisbiga Xamaas ee heer qaran ee dalkeena Soomaaliya mudane aqoonyahan Bashiir Amaan Cali Mere oo Toronto marti loogu kuna soo gudbiyay ay waxay kala soo sakada barka waxay qabka aan doomre ay jaaliyada Soomaaliyeed ay guuleysay sharaxa iyagoo ah shahada sharaf lagu soo dhaweynayo ujeedaduna ay tahay in aanu muujino in aanu ku qanacsannahay mabaadi'da uu noo sheegay iyo waxa uu aaminsan yahay waxaan leenahay musharax madaxweyne صفر شبكة beautiful ما بكرة في خد لبس صفر بس